waa tahay markaad South Africa timid oo maaragta safarkaagii ka soo baxday kadib dabcan South Africa qofka markuu yimaado kadib waxa loo diraa ama qof basi inta badan waxa loo diraa location meel oo tuulooyinka ah bal adiga meeshaasi iyo waxaad iga sheekaysay inaad dib kala kulantay markaad timid kadib South Africa deegaankii lagu diray oo aad ka shaqo bilowday dib kala kulantay bal taasi nooga sheekay markaan South Africa imid South Africa shaqada laga bilaabo oo anaga Soomaali hadaan caan ku nahay location weeyaan markaan South Africa imid location baan shaqo u aaday markaan maalmo kooban joogo waxaan kala kulmay muddo aan u malaynayo taqriiban inay tahay usbuuc markaan shaqaynayo iyo xabad ugu dhacday xabadaas ilaahay baa ii nimceeyay maysan dhibaato badan iga soo gaarin waqti dhexdeeda igaga dhacday marxaladihii South Africa ku maqlayay in dhagta ka sii hayay oo nadartu dhahay oo aniga igu dhacday bay ka mid noqdeen dhaawacii markaan meesha ku dhaawacmay isbitaal baa la igeeyay khayr Allah hasiyo nimanka dhalinyarada la shaqeynay isbitaal bay igeeyeen isbitaal waata inta la gaarin dhaawacaagi waxaad inooga sheekaysaa bal marka qaabkii wax u dhaceen sharaxaad inaga sii wax yar ka sheegaysaa qaabkii wax u dhaceen waa sheeko dheer duusan waqti inaga cunaynin waxay wax ku dhaceen markaad cusub tahay waxa weeyaan wax badan baa ka maqan wax badan baa ka maqan aniga dukaanka dhexdiisa ay tuugadu noogu yimaadeen anoo laba nin ah yar baa qaybta lacagta lagu qabto ku jiray gudaha aniga dukaanka dhexdiisa aan joogay way noo soo galeen markay noo soo galeen qori baa la igu qabtay aniga gacmahan taagtay maysan igu mashquulin qaybta dukaanka lacagtiisa lagu qabto iyo ii dhaafeen qayb kale oo banaanka ka timid qaybtaas baa i qabatay qaybtaas waa markii ijir dishay nabara ila dhaceen ugu dambeyn waxay isku dayeen inay madaxa darbiga ila dhacaan marka kurkan madaxii baa danaf bay haysay in madaxa darbiga la igu dhufto markaas ayaga qaybta ijir dilaysa saddex qof bay ahaayeen laba qofna waxay iga jirtaa qaybta counterka lacagta lagu bixiyo oo tiil adag ay rabaan inay galaan qaybta qoriga wadatay weeyaan marka qaybtaas baan la dagaalamay aniga markaan xanuunsaday ul adag oo ku jirta meesha albaabka laabkiisa ayuu ilaahay gacanta igu riday tii baan ku dagaalamay intaan xanuunkii qorigii iyo hilmaamay cabsidii markii hore ay haysay waxaa dhacday inaan nimankii banaanka ul ugu saaro ayadoo qorigii dukaanka ku dhex jiro qaybtii kale qoriga wadatay ayagoo dukaankii banaankiisa jooga oo aniguna isku dayay inaan banaanka ula baxo igu soo rogaal celiyeen qaybtii kale oo qoriga sidatay ana u shayday haysta oo meeshii taagan markay igu soo rogaal celiyeen way igu tirtirseen marka waxay ku wada hadlayaan ma fahmeen laakiin inuu tirtirsan yahay baan dareemay hal xabba marka igu dhacay hal xabba igu dhufteen markuu gacanta celiyay oo halka xabba igu dhacay anigana ul baan gacanta ku haystay ushi baan ku qorgooyay marka sababtoo ah xilligaas isdhiibitaan shakadu way ka baxday ushi nabar xun baa ku dhacay dhagta korkeedu kaga dhacay aniga xabadii lama dhicin laakiin asaga ushi buu la dhacay sababtoo xoog buu iigu soo socday xilligaas marka waxaa dhacday albaabkii banaanka shabaq ahaa in la baneeyo oo anigii iyo kii xabadda igu dhufanayay iyo qofkii kale la socdayba anoo wada carar ah aan iridii wada mar iridii markii la maray maalintii dukaanka la keenayay dukaan Soomaali ah oo nagu dhow yaan soo maray marka waxaan u cararay dukaankii sababtoo aan dhiig baxayay bal wax ku xidhay inaad heshidan meeshaas u aaday niman dhalinyaro ah niman aan ugu tagay waxaan ku rinamay how dhaawac baan ahay lugta xirakow marka labaad dukaankii gurmad u suubiya ayagoo dukaanka shabaq u xiran yahay aniga ma fahamsan marka wadankan waan ku cusub qorshaha dhan waxba kala ma socdo ilaa waxaa ka jirta meesha dagaal business baa ka jira oo laba qolo isku dhacsan baa dukaamaha iska leh waxba ku caawin mayna naga tag baa la igu dhahay anoo dhaawaca markaas aniga meel kale oo garanay meel dukaankii xabadii igu dhacday aan ku soo laabtay marka ninkii ila joogaya nimankii dukaanka iska lahaa oo dukaan kale meesha ku lahaa telefoon u diray adiga hadalka wax kala foganaya intuba dhaqso kale hay niman gurmad ah ee skuuradka banaanka ee dukaanka lightka anoo ka sii laabanaya ay arkeen oo dukaan kale ka yimid kuwii baa ay caawiyo marka adiga sidii dhiig joojin lugta igu xiray isbitaal sidii igu geeyay habeenka isbitaalka ku bariyay maalintii dambe waxaa la keenay Johannesburg magaalada saad ula socoto South Africa dadka qofta kuugu jecel dadka hal mar bay ku soo booqan kartaa meel ay dadku badan ku yimaadaan oo sheeko heshid waxa weeyaan oo booqasho badan helaysid ma laba isku ka darmatay marka anoo dhaqso dhaawac soo gaaro iyo anoo wadanka ku cusub
maansadan inaan tahriibba la aadin baan horta kow dhalinyarada farayaa laba dhibaatada guud ee South Africa dhalinyaradu ku qabto oo ani markaas kali igu ahayn ee salka ku haysaa marka wax badan oo hadii ama gabay la tirsho ama maansa la tirsho wax badan baa soo galaya marka midhaha laga dhex fahmi doonaa maansaduna sida tan bay ku bilaabanaysaa waa bala tahriibtuye anaa baafinayo baaq ku diraaye barbaartay ima qalo barigeena ha dhaafina badahana ha aadina annagoo bahdeen baayirgee la maalo beeraha la falano baraha dhulkeeni barwaaqada ku taal baashanada ka gurano balaba naga dheer tahay ayaan baabuur baxaaya baarka kor raacnay waxaan soo biglaynoon bariyo soo barmuudaynoon buuraha iyo boodharada aan soo banjiilaynaba badii ayaa la yimid biyaan soo muquurano bilo iyo 100 habeen yaan doon ku soo dhex barino baaqigii bahalkii iyo xaaskiyo badda ka soo haray bariga la keeno burcad baangada sidataa bad ku laysay meeshaas Mozambique Tanzania barbaa xabsiyada buuxdhaafiyo budkuna u dheer yahay badar ay helaan biyo iga daayay barbaa Mareykan biyo u sii dhaansado barbaa Yurub sii beegsado balse baashaan anigu soo mar meel baas ay baraha South Africa Pretoria lahaayeen yaan annagoo boqolaala balaq ku soo niri badar ayaa la cunay biyo ayaa la cabay beeqaaq ayaan u soo baxay waxaa baxaysa shalaa la boobay xabad baa ku taal beertuu galay bariye kadib anaaba shaqo la iigu baaqay baaki gaariya ayaan baasha kaga booday meel ay 100 ku dhimatay ayaa barqa la igeeyay anoon bil joogin lugtay baf ku tiri waa balaayo adduun oo bahda South Africa ku idil oo barbaari kuma harin ee allahayow bartii aynu lahayn bariyo nabad ka yeel baaqigu ha aade